salaadooda madaxooda lama dhaafiyo rajulun amma qawman wahum lahu kaarihun buu nabigu yidhi nin dad jujuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa waa khatar dee malaaka dawladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynayaa dee salaad qura hal salaada kii ku haystay haddaan waxba helaynin ummadda dhan iska afduubtayna malaha ma dhaamayo sida ogeed buu nabigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hooyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raalli geliso ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan laba walaalo oo kala iska laalaada xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kasta oo laa yushriku billaahi shay-an marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiidkii sheegayay saxiixaynka ku yaallay laba mooyaane buu nebigu yidhi labadaasi waa kuwee laba ishaysta iyaga waxaa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilaahay yidhaha intay ka heshiinayaan